asxaabteeda waxyar rabaa inaan idin sheego intii fahanto ay fahanto inta si aqliga leh ay fahmeen inta aan fahmina ayadoo taala qofti maanta aan soo kala kiciyay waxay tiri walla isku kee goobta ayaan wal ijii dhulka la dhiga horta naag waxay niman ina gabdho kale isku tagaan oo loo jilciyo horta meesha ma biyaalan adiga waa dimaaj garaysan kartaa waxa ku soo haray wiilashanada ay ku sastay hal mid haduu joogay kitaab inta soo qatan gacanta gelinayay ilaahay cimriga ii gaabay waxa meesha yaalo waa suuq guri ma horta oo lama shirqoorin waa suuq camera meesha taalo CCTV camera meesha taalo waan soo gelinayaa qofka ila socday iyo qoftaas qofka kali ee dukaanka ugu galay tan labaad dukaankeeda waxa ku xiran CCTV camera maanta hadii ay run sheegayso oo la isku tagay kamerada intay ka soo bixiso ha idin la soo wadaagto mid kale suheebo naagta iga qabo markay la suheebo nimanka iga qabo maxay u dhiibaysay mid kale nim suuqa la joogaaye gabar niman dilayaan ma laga aamusi lahaa CCTV kamerada ee suuqa hadii teeda soo bixin weyso CCTV camera suuqan soo bixinay waan soo dhigay markaan u galiyay iyo markii laga soo bixinayba wiilashanada haday socdeen ay ka dhawaajiyay hadii kale qoftana soo haray soo haday anyways qof yahay hadaad aaminin la adahay ama dadka aad rabtiin ka dhaadhacsiis inaan aniga kaliya ku dilin mar labaad ibalanso life aan galno mar labaad ibalanso life aan galno waalid qofta waxaa tahay saas iska seexatay xitaa iska kee dhaadhicinin qoftan walaalayaal kol hore yees qof ka soo hadla ma jirto abi isri iyo ciise ana waxba ka sameyn intaas oo 2 sano idaba haysatay waan iska aamusay oo duco waalidan qaatay gacanta la isku keen saaray maxaa keen haddana in hadii uu soo noqoto ma laba jirkeyga soo adkaan jirta ayadoo og waliba yaa aniga iyo gacan kulaylkeyga ayadoo og bay dhunta ii gashay nafta alla laheeda ii keentay niman shan ka reebina sharci kaama reebo waligeeda 2 naagood isku boodi jireen waligeeda 2 naagood isdiri jireen wax weyn meesh ma yaalo maandeen naag aniga la iligda way ka faxweynta hadayna inaan aaminaynin life hadantii la soo galo mar labaad ugu celina maandeen marka dadka meelaha jajaqdahay oo ani eedeenayo intaas ay saarneed ee idhibi jirtay in Allah hadashaan ay ahayd waxa ku soo haray familka walaalada hadaan u sheegi lahaa indhiga dagaal bangalaya way bii fiicnaan leed hal nafar ma ogeysiinin familkayga dan waan ka qariyay you know why in sidii hore gacanta la isku keen saaro baan ogaa anaa ka soo dhuuntay horta meeshan guri lama joogo camera meesheeda ku xiran ha soo dhigto ee to z qoftiye ani waxa isdhahay cashirka maanta u dhigtay wuu ku filnaanaya laakiin hadii koow haddana cashir kala sameysay dagaalka ani aduu joogay maxaa family iyo qabiil iyo balaay iyo qashin ugu orodaa na aniga halka qof oo aan ku leeyahay maanta uu ila ka garab taagay ma jirto familkaaga haday kugu kalsoon yihiin ama ay agtooda aad wax ka tahay ay soo ka fasaxaan intii lagu kaxeeyo anna la ikaxeeyo garoon han la geeyo life maxaa familka meesha keen familkaaga haday ogyihiin in aan naagnimadaada ama geesinimadaada ogyihiin ha isku keen balamiyaan meesha wax kala ma yaalo hadii kalena inta hadda kugu dhiga cashir ku noqotay eedad diyaalo yeeso idin gorta doqobatiin qof hal qof dilay maxaa kale ka sugayseen qofkaas wuu dilay ana dhahdaa wal isku kay goobtan bay dhihayd laakiin ilaahay waxa loo mahadiyay meesha inaysan public ahaan inaynan private ahaan ay public tahay ee dukaan ay tahay yaa suuqa camera qaba hal wiilashanada ama familkii qof kamid ah tuu meesha joogay waa arki kartaa waan soo dhigaa bari soo bixina dukaankeedana camera ku xiran qadeer u sheegis oo la lagday oo madaxa lagu dhuftay yaa ha soo bixisa kamerada idin la wadaagto Soomaaliyeed haday soo bixin weysana gabadha waxaan ku dhigayay iyo soo u galay yaa in ka qarsanaysaa buuq joojiya 2 gabdhood istagaashay yaa meel loo dhaafan ma jirto soo waxa garteen ma aha
nambarka halkaas ku xiran yahay qofta adigana haddaad rabtid filmaha kugu aniga waxaa qabaa naag isku kalsoon ah naag iyo lababa inaan waxba iga qaadi karin marka askartan qayladan iyo buuqan iyo qabiilkan ugu inta joojisid haddaad naagta diyaar ah oo aniga faamilkaaga soo wado kuwayga anaha ay kaxeeyaan garoon haan la geeyo ya anaga raacdo markaas aa la ogaanayaa kalsooni waxaan ku qabay nafsadeeda inaan adiga kaa adkahay xijaabkayga isku siteeskaan kugu imaadaan oo xitaa fanaanad soo xiran aasaan ku dhahay soo kacnayaa iska kee celi fiiriya iridaa laga galaa dukaankeeda qof kale haduu ila socon lahaa way qaylan lahayd way igaadamaysan dhihi lahayn dukaanka qofka soo istaaga bab caadi indhaha ugu dhufane soo istaagaan dhahay sikan igumayna qaadan inaan dhulka dhigo ya anoo heli kara weliba inaan halkaas kaaga istaago naagaha waxaa soo haray nacnacleynayo naagaha nacnacleynayo soo haray naaga istagaashay boosidii ma banaana way ii banaantiin soo ma ah balansada taan ku dhigay ka darnaa idinku dhigayaa halkaas oo ka baxay asxaabteeda aniga dhib ma jecli social media 2015 kila hada ku jira 2 sano naagtaas u samraaya wax la hadlay ma jiro marka aniga wax ku soo simaanta aan u tagay oo xilka kula kordhacay yad kulligeen leedin wad arxan daranta aniga ma arxan darin ayada akhlaaq daran waliba waan u naxay anagu ku kor fadhiyo heli karina indhaha ka bujiyo yaan asxaan u sameeyo faraha ka qaaday marka wari dhamaanta waxaan kaga baxaya waxa wiilasha ku qaraabanin ya tolkeedana waa maqlaysiin qof haduu igula tagay qoftaas kaamirada suuqa ta anaaba soo dhigi marka u galay markan ka soo baxay ta gudaheedana ha soo dhigto ilma adeeryaalo hadii kalena dinaagtu waan dilay ya dhiigeedan bixinayaa amaan siiya marka hore waxaan ku dhahay gacanteeda kuleelkeega ma aadan dhadhaminin ee mar hadda dhadhamin lahayd wanaagayga iyo saaxiibtinimadeeda dhadhamisay ee gacanteeda kuleelkeega dhadhamin lahayd hadda ka hor baan ku iri igamaadan jaqjaq dhaxdeen laakiin waxaad rabtaa dadka ugu sheekee adiga kulli waad ogaatay qofkaan ahay sikin inaadan biyo ku gabaneenina waad ogaatay haddaad afaarahayga ka bixi weysidna maan alla keena saanan ku dilaaya mafahant marwa sharaf leh oo reerkeeda dhaqanayso aan ahay waan kaa noolaan waaye waxay low life ah amaan isi dadka aniga idhaleelayaan intaas sanay naagtan igu soo dhaga hadlays dhibays ceenayse inaa qabsataan ee ahayd waxa gartama dad ama isii weysana tan hadda laba jibaar ku noqonay laba jibaar waan salaam guys